qof waliba oo muslim ah wuxuu ku hanweyn yahay inuu gaaro darajo sare una noqdo mid laga jecel yahay Alla agtiisa si waxa lagu kala duwan yahay halganka iyo tartanka uu qof waliba u galayo gaarista yoolkaas midkeen ayaa ku qancayo inuu dukado 5 salaadood halka ku kalena uu ku darayo sunnooyinka waxa labadoodaba ka sii dheereeya midkii sadaqa ku darsado isagana waxa ka sii dheereenaya midkii faafiyay aayad ama xadiis deedna qofkii uu gaarsiiyay uu ku amal falay sagabigoodba waxay ka siman yihiin rumaynta cilmul qaybka oo haddii aynan rumayn waxyaabaha qarsoon ee aan xalqadeena maanta ku soo qaadan doono acmaashoodu waxay noqonaysaa mid dheelisa oo aan la aqbalayn sagacaliyayaal inta aan gudagelin barnaamijkeena tixanaha ah ee 30 juz iyo 30 fariin waxaan idinka codsanayaa inaad nagu soo biirtaan oo subscribe saartaan channelkeena fadlan ha ilaawina inaad la garaysaan muuqaalkan oo aad gaarsiisaan saaxiibadiina mahadsanidin وحو الله سبحانه وتعالى آيات 3 سورة البقرة كيري الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون متقينتو وكور ما وحيابها أن الأركين قيبك وحين أوغان صلاة إيغونا وحكبحيا وحي أنكو إرزاقني لبعهانتي وحيابها دوني ديالو أودان waxaynu u kala qaadi karnaa laba shay waxyaabo aynu arki karno ama aan dareemi karno jiritaankooda iyo waxyaabo aynu arki karin aqligeenana ku soo dhacaynin oo aanan xitaa dareemi karin si jiritaankooda ay noo sheegan Alla subxaanahu wa ta'ala iyo rusushiisaba waxaana loo yaqaanaa waxyaabahaasi qayb ama waxyaabo qarsoon culimadu waxay cilmul qaybka ku qeexaan cilmi uu la gaar yahay Alla subxaanahu wa ta'ala oo ayna makhluuqaadku arki karin ogaana karin inta uu isaga la doono mooyee malaa'igta jiritaanka aakhiro isa soo saaridda jannada naarta iyo sidoo kale rumaynta Alla subxaanahu wa ta'ala ayaa tusaalooyinka ugu waaweyn ee qaybka diinta islaamkana waxa aasaas iyo udublaxaadba u ah rumaynta xaqiiqooyinkaasi ee aan la arki karayn oo sidaad wada ogtihiinba 6 tiir ee iimaanka gabigoodba waxay ina wada farayaan oo ay wada kulminayaan rumaynta qaybka waxaa xaqiiqo qaraar ah haddii aynu arki kari lahayn waxyaabahaas qarsoon ee nagula waajibiyay rumayntooda in iimaanka iyo imtixaanka noloshuba ay lumi lahaayeen micnahooda oo waxay inala noqon lahaayeen wax iska caadi ah oo aanan ku fadhiin qaayo weyn sidoo kale si aanan u noqonin kuwa derbiyada madaxa ku garaaca waxa inaloo soo dejiyey kitaab inagu hagaya jiritaanka waxyaabahaas qarsoon oo xitaa haddii aynu si toos ah u arki karin jiritaanka Alla subxaanahu wa ta'ala isaga ayaa si maangal ah inoogu sharaxayo doodaheena guracan ee caadifadaha ku dhisanna isaga ayaa burburinayo deedna waxa uu inoo ogolaanayaa inaynu rumayno jiritaanka Alla weyne iyo wax waliba oo inaga qarsoon waliba si shaki la'aan ah sida sawir kasta uu inoo horseedayo jiritaanka qof sawiray farshaxan kastana oo inoo dulgeenayo farshaxaniisto ku farayareystay ayuu koonkan milgaha leh misana nidaamka iyo xeerarka ku dhisan inoo dulgeenayaa inuu jiro Alla qoray misana dhaashay kana soo saaray farshaxan iyo waliba deegaan ku habboon nolol iyo nitaaqo se waxaa arrinkaasi fahmi karo oo keliya kuwa caqligoodu uu fiyow yahay misana ka fog caru maskaxeed iyo waliba maangaabni waayo haddii uu jiro abuur waxaa qasaba inuu jiro hal abuure haddii uu jiro jiritaanna waxaa qasaba inuu jiro mid jirsiiyey haddii uu sawir jiro waxaa qasaba jiritaanka sawir qaade haddii uu farshaxan jiro waxaa jira farshaxaniiste ku faryareystay farshaxankaasi haddii uu jiro hanaan shaqaynaya waxaa jira maaraye kala haga haddii ay jiraan nolol iyo nidaam joogto ah oo aanan maqlaynin abidkayn maanta duulimaad ma jiro waayo samada ayaa la dayactirayaa waxaa qasaba inuu jiro Alla taaga samadaas waliba iyada oo aan tiirar lahayn laga soo bilaabo carshiga Alle ilaa laga soo gaaro nooleyaasha ilma aragtooyinka ah waxay inoo horseedayaan inuu jiro
alle ay dhankiisa ka ahaadeen. haddaba waxaa macquula saaxiib inaad isweydiinayso, haddii ay jiraan waxaas oo dhan oo daliilo cadcad ah, maxay dadka qaar gaalo u yihiin oo ay alle subxaanahu wa tacaala u rumayn la'yihiin? se jawaabta oo fudud waa inay doorteen dariiqa diidmada, waxayna la mid yihiin qof indhaha isku qabtay si uu u dafiro jiritaanka qoraxda, oo si weliba aad qofkaasi uu sheegto xaqa, waxa uu haystaa bakoorad uu ku tukubo misena la yidhaahdo maya, waayo waxa uu doorta dariiqa diidmada si uu ugu noolaado rabitaankiisa. gacaliyayaal, 114 suuradood ee qur-aanka waxay inoo sharaxayaan waa kuma alle, maxaan u noolnahay, sidee buu alla u abuuray koonka, jiritaanka malaa'igta iyo weliba maalinta aakhiro. helista jawaabaha su'aalahan oo dhanna waa kuwa ay filosoofiyadu waqti badan geliyeen si ay uga gungaaraan, se waxay badankoodba geeriyoodeen iyaga oo aanan xaqii haleelin, jawaabna u helin su'aalihii maankooda ka guuxayay. se annagu ilaahay ayaa xaqa inala jeclaaday oo innaga ma dooranin diintan quruxda badan si uu u xididaysto iimaankeenana. isla diinteenna ayaa ina fartay inaan koonka iyo makhluuqaadka alle ku dadaburno, sida aan ku arki doonno xalqadeena 4. soo miyaynan ahayn saaxiib inaynu rumayno qaybka iyo weliba jiritaanka alle, oo aanan noqonin sidii fircoonkii qayliyey kolkii ay naftu dhuunta soo istaagtay? rumaynta qaybka waa daawada qalbiga iyo weliba ku noolaanshiyaha duni shaki la'aan ah. ogsoonowna saaxiib, furaha qaybka alle agtiisa ayuu ahaaday, oo isaga qof aanan ahayn ma oga, waayo alle subxaanahu wa tacaala waa midka keliya ee og waxa ku dhex sugan beriga iyo weliba badaha. wixii caleen ah ee dhulka ku dhacana waa uu og yahay alle. xabad masago ah oo mugdiga ku dhex sugan, wixii qoyan iyo wixii angeganba waxay ku wada sugan yihiin kitaab cad dhexdiisa. haddii aynu dib u fiirino aayadda barnaamijkeena maanta, waxaynu arkaynaa in rumaynta qaybka lagu xijiyey oogista salaada iyo weliba wax la bixista, waxayna middaasi inoo caddaynaysaa in salaada iyo weliba wax la bixista ay yihiin labada shay ee ugu muhiimsan kadib la imaanshaha iimaanka. sidoo kalena waxaynu ka dheehan karnaa inuu alle subxaanahu wa tacaala uu rabo inaynu xoojinno xiriirka isaga iyo weliba dadka inagu hareeraysan inaga dhexeeya, maadaama salaada ay xoojiso xiriirka addoonka iyo rabbigiisa ka dhexeeya. sakada iyo samafalkuna ay xoojiyaan xiriirka ka dhexeeya addoonka iyo weliba addoommada kale. nebiguna naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waatii uu xadiis ku yidhi, madaxa diintu waa hoggaansanaan, tiirkiisuna waa salaad, halka fiinta sare ee arrinkuna yahay jihaadka. ugu dambaynna gacaliyayaal, allaha qaadirka ah ee iska leh labada daaroodba hayna waafajiyo xaqa, hana inagu dilo diinta islaamka. dalka iyo dadkana aynu u ducayno saaxiibayaal inta aynu ku guda jirno maalmaha barakaysan ee bisha Ramadaan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.